السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal soo dhawaada janalkeena wadajir media subscribe noo saar soo dhawaada maantana waxaan idin hayaa xamaas oo sii daysay laba la haysto oo u dhashay wadanka Mareykanka labadaas la haysta ee Mareykanka ay xamaas daysay madaxooda waxaa lagu helay in raashin iyo daawo lasoo geliyo maranka Gaza walow ay diiday Israel inay shidaal ay soo dayso soo sideyntan xamaas ay sii daynaysa labada la haysta ee u dhashay wadanka Mareykanka maalin ka hor ayay ahayd oo ay sii daayeen raashinkaasi lagu soo bedeshtay marka haddana maantana waxay ku dhawaaqeen inay sii daynayaan laba la haysta oo u dhashay wadanka Israel arrintaasi oo maanta hadalhayn weyn ka dhalisay wadanka Israa'iilna way ka cagajiiday way diiday in labadaas la haysta la soo daayo beddelkeed raashin ama shidaal ayadana ay sii fasaxdo arrintan waxay keentay marka in shacab badan ay isku soo baxaan magaalooyin kala duwan ee wadanka Israa'iil ayagoo tagaya wasaaradda gaashaandhigga wadanka Israa'iil oo ku hor bannaanbaxayo ayagoo dhahaya ma dadkeena noo keentaan oo maad leeshiisaan xamaas waxay rabaan maad siisaan ayagoo ku bannaanbaxaya arrintan xamaas maanta ay isticmaaleen waa tactico farsamo ay isticmaalayaan oo ay rabaan marka in Israa'iil dhexdeeda isqabsi uu ka dhasho marka waa sidii la saadaalinayay shacabkii ayaa ka soo horjeestay dowladda Israa'iil ee taagta darneed ee xaqdarada ku haystay dhulka Falastiin marka wararkan baa maalmahan la isla dhex marayay warkan maanta ayuu soo baxay labada Israa'iil la sii deynayo wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah in Ilhaan Cumar ay ayadana haddana maxaa la dhahay ay hadashay ayadoo ka dhiidhinaysa gumaadka loo geysanayo walaalaheena Falastiin ayadoo mar kale ay ka xumaatay tookadii hore waxay ahayd Israa'iil wixii ka dhacay ay ka hadashay marka tookadan ay zaid ugu sii dhiidhisay Israa'iil waxay geysanayso inay tahay wax zaid ah oo ka badbadis ah oo waxay sheegtay in bambooyinkii uu isticmaalay Mareykanka bambooyinkii uu isticmaalay wadanka Afghanistan ka badan inay u isticmaaleen Gaza subscribe noo saar janalkeena.